daraad waxaan dhameynay qorshihii weynaa ee ka hortagga sida looga hortagi lahaa cudurka coronavirus oo runtii aan u arko guul aan wada noo soo wada hoyatay oo qorshe wada dhan inaan waqti yar ku samaysano aan ka howlgalno haddii alla idmo qof walba meesha ugu aadan ay caddahay iyo baahiyaha iyo sidaan ugu wada jawaabi lahayn anagoo iswada kaashanayna aad iyo aad ugu mahadsantihiin saakay waxaan rabnaa inaan focus ka saarno xirmooyinka asaasiga caafimaad ee dalka laga hirgeliyo xirmooyinkaas ingiriiska lagu yiraahdo essential package of health services waxa ay soo bilowdeen in laga shaqeeyo 2008 2013 waxa hirgalay in laga fuliyo wadanka sidaad ogtihiin meelo dhowr jeer loo sheegay xirmooyinkaas wadanka dhan ma wada gaarsiisnayn sababta oo caafimaadka wuxuu ku tiirsanaa deeq bixiyayaal lacaga ay bixiyeen oo aanan gaari karin inta kale waxaa ka socday mashaariic caafimaad laakiin oo ku dhisan bani aadanimo humanitarian funds ku socdo waqti kadib waxaa la isla gartay in uu u baahan yahay xirmooyinkaas asaasiga ee adeega caafimaadka inay u baahan yihiin in dib loogu noqdo kaliya ma aha iyo wadanka intiisa kala sidii lagu gaarsiin lahaana inaan ka shaqeyno waxa isugu yimid wasaaradaha caafimaadka oo hogaaminaysa wasaaradda federaalka ee caafimaadka hay'adda WHO World Bank deeq bixiyaasha DFID UNICEF waxa waqti loo fadhiyay oo rag khubara Soomaalina aan kaalmo weydiisanay inala joogeen laga shaqeynaayo ayaamahan package-kaas xirmooyinkaas maxaa lagu kordhin karaa see loo ballaarin karaa see lacag looga raadin karaa usbuucyada ugu dambeysay dibadda ayaa la wada jiray oo Nairobi ayaa shirar lala qaatay qolyaha deeq bixiyayaasha iyo World Bank waxaan hadda idin tusaynaa in rabnay inaan idin la wadaagno meel fiican ay maraysa arrinta bal wixii la soo qabtay iyo sida loo wajihi doono insha Allah markuu soo dhamaado aan rajaynayna bisha April inuu soo dhamaadana aan markaas anagoo wada dhan wada ansixino aan isla ogaano wadanka xirmooyinkan ka hirgalaya sidii ay u fuli lahaayeen meelahay ka fuli lahaayeen sidaan dhaqaale fiican ugu heli lahayn uga faa'iideysan lahayn marka waxaan rabnaa kaliya inaan idin dul marno waqti badan ma jiro dibaan isugu soo noqon doonaa haddii alla idma waa wada falaqayn doonaa wax walbana markii la diyaariyo waxay u imaanaysaa dawladda federaalka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka ee dawladaha member stateska ayadoo la wada fadhina wax la wada ansixiyo oo dhaqan galay inay noqoto ayaan ilaahay ka rajeynaa